Cable TV. Professor Qasim Sheikh Ibrahim Tubac gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka OCD oo maanta Home Cable TV waraysi khaas ah ku siiyay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha ka taagan gobolka Awdal iyo sidoo kale ciidamo la sheegay in magaalada Boorame la keenay. waxaynu wada marag furaynaa magaalada Boorame gaar ahaan gobolka Awdal inuu dhulkii nabad yahay in uu u baahnayn maanta ciidamo la soo xoojiyo inaan u baahnayn maanta dad aan furaynin inayna rarin Somaliland xisbi ahaan waxaan u arkaynaa ciidankaasi ku farximayno haddaan u cudnahay kulmiyana ku farxmaayo wadanina ku farxmaayo in dagaal laga abuuro meesha oo dagaal ka yimaado ciidana ku farxmayso ciidankaasi fadqala lumbu soo wada ciidanka xiriyooga lagu celiyo isagoo gudoomiyuhu Home Cable TV la hadlay ayaan wax ka weydiinay arrimo ka jira deegaanka uu ka soo jeedo waxaana noo xaqiijiyay jabhadu inay ka jirto deegaankaasi sidoo kalena waxa madaxweynaha Soomaaliland ku tilmaamay mid ay taladiisa ku yimaadeen jabhadaha kala duwan ee dalka ka dilaacay waxa uu yiri waa nasiib darro aanu marnaba uma maleynaynin in Somaliland gaar ahaan Awdal jabhada ka soo horjeeda Somaliland inay abuurmayaan horta maamul xumada Muuse waxay keentay in dadkii ku fikraan jabhado dila jabhadi way jirtaa tii wabara hadda way soo noolaanaysaa way soo socotaa waxaas oo dhan waa maamul xumada Muuse reer Awdal waxa diyaar uma ahayn shuqul kuma lahayn ee maamul xumada Muuse ku keentay dhalinyartii intayna bixin gobolkan intaas oo goor ay kala xaajoodeen dhibaatadooda way sheegeen waxa la yiraahdaa Hargeysa ka soo jawaabi mar labaad bay noqdeen mar saddexaad bay noqdeen marka imika waxay ka aamin baxeen oo aanay aaminaynin odayaashoodii hor joogay islaadiintoodii iyayna aaminayno beentaasi ay sii fogeysay Muuse Biixi madaxweyne ma foga adaa hawshan wax ka qaban kara adaa diiday inaad dadka la hadasho bini'aadamka ayna dadku haday caroodaan marka ayaan la oran maxaa loo caroodo markale gudoomiyaha ayaa waxa uu ka hadlay arinta xadhiga xildhibaanada ku xidhan magaalada Boorama waxa uu ku sababeeyay xildhibaanada imika xidhan ee u xidhan jabhad beel ah waa dab la shiday waxba ka tari maayaan nabadgelyadaas ka xisbiga cid ahaan waxa tahay mas'uulkii labaad ee xisbiga waa heer qaran arrimahan sheegaysa leedahay jabhadu way jirtaa adiga deegaankaaga jabhadu ka jirtaa sida la sheegayo maxaad nabadgelyada uga shaqeyn lahayd markaa oo oran lahayd dawladay arrimahan hor joognaayay wax laga qabto waxaan ku sheegay oo kugu celi intaas oo goorba ka hadalay iyaga ka hadlay salaadiinta ka hadlay hadii dalku sida wax laga bedeli waayo oo Muuse Biixi uu shicibkiisa dhageysan waayo ani waxba igama gelin waxa doontaan sameeyay waxa doontaana sameeyana dalka ma wadayso sidaas oo kale isagoo mar kale ka hadlaya xaaladda magaalada Boorama ayaa barasaabka gobolka Awdal iyo laamaha ammaanka waxa uu ku eedeeyay guud ahaan inay yihiin kuwa iyagu mushkilada halkan soo gaarsiiyay barasaabku waa meelaha ka dhimantay iyo booliiskana raac waa labada meelood oo gobolka dhintay hataa waxaad moodaa cishadii dhawey dhibaatooyinka dhacay anagu marmar waxaan leeyahay war malaha iyagaaba ku jiray malaha iyagaaba dhibaatada ka mid ah de horta hadana amnigu wana guul dareysanin waxaan oo dhibaatay ma dhaceen ee waa la hagaagi lahaa anagu waxaan u arkaynaa niman xafiisyada iska fadhiyo aan ma garanaysaa shicibkiiba hawl u qabanayno ma u arkaynaa marka guul darradu halka ka tabda halkaan soo arkaynaa وهوري أحمد هوري TV عالمي Home Cable TV magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab hadaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida